bismillah. aad baan idiin salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtana salaan diiran oo kal iyo laabaan u dirayaa. intaa kadib haddaan usoo noqdo jawaabihii su-aalihii aada soo weydiiseen, xaqiiqatan waddanka soomaaliya sidii dowladdii dhexe u dhacday waxaa ka jiray fadqalo siyaasadeed oo inta badan ay ku leegyihiin dad ajnabi ah, sida waxa loogu yeero beesha caalamka, maraykanka, reer galbeedka iyo dad ay adeegsanayaan wadamada dariska. arrintiina weli way socotaa. sidaad ogtihiin siyaasadda soomaaliya ma ahan siyaasad dadka iyo maaragtay ummadda soomaaliya ay degsatay. maamulka jiro ma ahan maamul soomaali samaysatay. maamulka jira ma ahan maamul soomaali ay ilaalsato. dhaqaalaha ku socdo ma ahan maamul dhaqaalahaas isagu soomaalida dhexdeeda ka helo. maamul kalsoonida soomaalida oo dhan haysta ma ahan. laakiin hadba marxalad baa looga gudbayay. waxaad moodaa maamulkan hadda u dambeeyo hadda xilligan joogo inuu ku mashquulsan yahay inuu ka takhaluso dadkii maaragtay beesha caalamka iyo dowladaha dariska ku kala xirnaa ee farada badnaa sida maamul goboleedyada, siyaasiyiinta, oo ay doonayaan ayagu inay noqdaan hal koox oo beesha caalamka ku xiran. arrintaas maaragtay dhib badan iyo maxaan ku rahda qalaaso badan bay keentay. meelo badan way ku guuleysteen, meelo badan weli kumayna guuleysan. farina kama qodna. waxaana dad badan ay u arkayaan isgarabyaaca farada badan oo maaragtay loo kala dhuumanayo beesha caalamka. waxaa 100% dhaami lahayd in mataqaana hal koox oo ku xiran beesha caalamka la helo. aad bay u fiicnaan lahayd, aad bay uga sharyaraan lahayd, aad bay uga dhib yaraan lahayd. dowladaha dariska iyo wadamo badan oo caraba sida imaaraadka oo kale wadanka faragelin ba-an oo ayaga aan maslaxadooda ahayn, aan dantooda ahayn, mataqaana dan dowlado kale ayay fulinayaan. soomaalidana way ku dhibaateynayaan, wayna ku dhibaateeyeen, kamana daalay inay ku dhibaateeyaan. arrintaas markaan halkaas kaga gudbo, dhanka gobolka Gedo iyo maamulka koonfurta Soomaaliya, maxaan ku rahdaa waxa loogu yeero Jubbaland. nimankii Tigreega ahaa iyo beesha caalamka iyo Kenyaatiga ayaa xoog ku samaystay. wax mataqaanaa maamul oo dad leeyahay ama ummadi leedahay oo meeshaas ka jiray ama ka dhacay ama ka hirgalay midna ma jiraan. hab maafiyanimo ah iyo dhibaato in dadka la dhibaateeyo oo baa ka jiray. siiba dowladda Kenya oo intii 10 sano u dambeysay duqeyn ka waday gobolada Jubbooyinka, gaar ahaan gobolka Gedo. dilka iyo dhaca iyo burburinta hantida ummadda Soomaaliyeedna waxay ahayd mid iska joogto ah. ama telefoon ha noqoto, ama dhisma ha noqoto, ama wada ha noqoto, ama beera ha noqoto, ama xoolo ha noqoto. waxaas waxay ahayn wax mataqaanaa joogto ah oo dadka lagu baabi'iyo, lagu xasuuqo. dowladihii hore ka jiray maamulka dowladda federaalka ama heer kumeel gaar ha ahaadaan ama heer ka dambeeya ha ahaadaan, iyo kuwa hadda jooga midna weligood kama hadlin. marka dhibaatadaas waxay aada ugu sii dhacaysay gobolka Gedo oo mataqaanaa taariikh ahaan markii la fiirsho dadka deegaankaas kasoo jeedo iyo gumaysiga Ingiriiska dagaalo ba-an baa ayaa mataqaanaa ka dhici jiray oo aada u fara badan. dad badan oo dadku inta badan gumaysi diid baa lagu shaabadeeyey. markaas ayaguna waxay u bedeleen inay yihiin dad mataqaanaa shufta ah. ilaa hadeer dowladda Kenya dadkaas gobolka Gedo u badan ee degan, gaar ahaan qabiilka Marixaanka la yiraahdo waa shuftu ka qoran yahay ilaa Ingiriiskii.
in dadka la maquuniyo oo la baabi'iyo oo mataqaanaa la dulaysto ayuu hadafku ahaa. waana xaqiiq oo de mataqaanaa arrin qarsoon ma ahan. arrintaas marka qoladii tigreega ahayd ee ka qeyb qaadanaysay, maxaan ku rahdaa, waxaan marka horeba soomaalida waxaa loogu talagalay in soomaaliya meesha laga saaro oo la qaybsado, waana la qaybsaday. marka kenyaatiga waxaa kusoo hagaagay intaan jubbooyinka kusoo hagaagay, wadanka intiisa kalena tigreegaas inay iska qaataan buu hadaf ku ahaa. laakiin dad badan oo dagaalamay oo mataqaanaa ama ururo diimeed ha noqdaan ama dad isxilqaamay ha noqdaan oo dagaalamay darteed ayaa waxay ku dhacday in mataqaanaa tigreegii iyo etoobiyaankii iyo maxaan ku rahdaa kenyaatigii ay wixii u suurtoobi waayaan, dagaalkiina ku daba dheeraaday. sida la socotaan 2 qof ama 3 qof oo cadaan ah oo meesha xeebta kenyaatiga laga soo afduubay, dhulkaas NFD laga soo afduubay, ayay ku marmarsiyoodeen inay mataqaanaa ay weerarka kusoo qaadeen oo ugu soo duuleen wadanka. sheekh shariif habeennimadii waa kii hadloo yidhi annaga ciidamadan inay soo galaan wadanka waxaan ka ogeyn lama arko, kenya iyadaa xoog kusoo duushay. sida muuqatana gobolka gedo oo dhan way ka carartay, weli waxay ku hartay ceelwaq ayadoo jabtay oo dulowday oo inkaaro ku dhacday. markii intaas laga soo tagana haddana waxaa muuqato in ay timid dowlad kuwii hore ka duwan oo kenyaatiga iyo iyagu xiriirkooda aada u liito. maxaa yeelay axmed madoobe waxa uu doonayo waxa weeye waa in nairobi laga xukumo unbuu weligii rabaa, halkaasuu ku taagan yahay. inkasta oo addis ababa ay gacantiisa ka baxday oo ay iyagii iyo tigreegii baabi-een, allaha duleeye. waxaa muuqato marka inuu kenya dabada la galay oo uuna aqoonsanayn dowlad federaala, oo una aqoonsanayn dowlad soomaaliyeed, oo una aqoonsanayn wadan soomaaliyeed, isagoo doonayo inuu kenya uu ku hoos noolaado, isla marhaantaasna dhul soomaaliyeed uu asagu haysto. arrimahaasoo dhan markii lasoo fiiriyo, waxaa meesha dhanka kale waxaad la socotaan dowladda etoobiya iyo cadowtinimadeeda soo jireenka ah. wax la aamini kara ma ahan. ciddii aamintaana waa cid aan mataqaanaa aan dareen siyaasadeed iyo mid soomaalinimo aan lahayn. ma qabo in aniga etoobiya ay tahay dad soomaaliya wanaageeda rabo. maamulkan iyagu hore ay u sameeyeen, axmed madoobe la shaqaysanayay, iyagu ay marka hore amreen, iyagaa u yeeray, iyagaana amar siiyey. maxaa yeelay waxa iyagaa xukumay 30 sano ee lasoo dhaafay. meesha la yidhaha dekada qalalan ee beled xaawo oo aad ogtihiin inay 3 geesood tahay, oo dhankana gobolka NFD ee kenya guumaysato iyo dhanka kale oo maxaan ku rahdaa gobolka soomaali galbeed oo etoobiya guumaysato iyo soomaalida xorta ah. 3daas meelood baa waxay isugu yimaadaan, 3daas xaduudood bay waxay isugu yimaadaan, 2 xaduud beeneed iyo soomaaliya xaduudeeda ayaa halkaa iska galo. waxaana loo yaqaanaa dekada qalalan. waxaas oo mataqaanaa lacag ah iyo canshuur ah waxaa qaadan jiray, weligoodna qaadan jiray saraakiisha etoobiya. tigreeg waa qaadan jiray, ilaa hadeerna way qaataan. way ka lacagaysteen, way ka taajireen. marka waa dad ayaga u shaqeeyo oo halkaa joogay ahaayeen. laakiin sida muuqato waxaad moodaa dowladdaas hadda etoobiya la yidhaahdo, soomaalida way taqaanaa, oo soomaalida gudaha ku jirto markii laga reebo eeyihii waalnaa ee new booliska loo yaqaanay. ciidamada etoobiyaanku sida way yaqaanaa soomaalida iyo dagaalkeeda iyo hadda ka horna muddo badan baa la isfara saaray. laakiin kenya soomaalida dagaalkeeda ma taqaano. saasay marka iyadoo indhala oo xayawaaniin ah usoo galeen wadanka. marka laakiin etoobiyaanku way yaqaanaan meelaha ay joogaan, gobolka geda ay ka joogaan. dhaqdhaqaaqoodu aad buu u yaryahay, sababtoo ah ma aamini karaan inay magaalada dhex maraan, oo waa in la laayaa suuragal ah ama bam lagu dhufto. marka xeryahooday joogaan, aad bay u taxadaraan. waxay isku dayaan inay la macaamilaan kuwa maamulka ayaga dabadhilifyada u ah
inay la maamulaan ayay isku dayaan. diyaarado kuma duqeeyaan, baadiyaha intay aadaan dad kuma soo laayaan, oo hadda dhulka gada la yidhaahdo markii laga reebo markii ay sii duuli jireen oo markay u kala socon jireen gada iyo maxaan ku rahdaa luuq iyo maxaan ku rahdaa garbaarey oo dhowr jeer ay dadku xasuuqeen meesha la yidhaahdo may kaa reebay. dhacdooyinkaasoo kaleeto markii laga reebo ayaga waxay isku dayaan inay intay taxadari karaan taxadaraan, oo waa gumaysinimada yaqaano. marka waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya xiriirka dhow ee lagu tuhmayo Ethiopia inay la leedahay ma qabo in uu yahay xiriir maxaan ku rahdaa sax ah, mana u malaynayo inay xataa dowladda federaalku hadda ay ku kalsoon tahay Ethiopia oo ay kalsooni ku qabto haddayna dee ayna waalnayn. laakiin maadaama marxaladda maanta lagu jiro ay tahay marxalad aada u dhib badan, dabadhilifyadina ciidda ka bateen, dad badan baa waxay qabaan in 100 dabadhilif uu ka fiican yahay 1 dabadhilif. dhankaa markii laga fiirsho marka in dowladda federaalka ay ka takhalusto canaasiirta mooryaanta ah sida mataqaanaa qoladan suufiyada oo kaleeto, waxyaabahaas oo kale in laga takhaluso oo hal koox ay wadanka inta ay joogaan meelaha ay joogaan ay gacanta ku dhigaan, waxay sahlaysaa in mataqaanaa xataa isfaham uu dhaco oo sidaa si ka wanaagsan u timaado. arrinta ku saabsan Kenya, xaqiiqatan Kenya way fashilan tahay. suuragal maahan in Soomaaliya ay faa'iido kala kulanto, maxaa yeelay dadka gobolkaas ku nool iyo Kenyaatigu weligood col bay ahaayeen, ayaguna shuftay u yaqaaneen, kuwaana gumaysi madow bay u yaqaaneen. dad isfahmi karo oo mataqaanaa weligood isdhex galay ma ahan. way isku dayday inay markay ceel caddo timid ay xataa kabaandho qaybiso oo maxaan ku rahdaa ay ka dhigto dhulkaas dhul gumaysiga Kenya hoos gasho. laakiin waa calacaltima ka soo baxday weeye in dhulkaas ay Kenyaatigu ama boobaan ama ay in badan kusii ilaalsadaan nin Mooryaana sida Axmed Madoob oo kale oo burcad ah inay kusii ilaalsadaan way ku adag tahay. waxaanad moodaa Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa luga dhooqa ku jiro midba mar baa la bixiyaa. Soomaalidu waxay loo baahan yahay inay waaqiga fahamto, isla mar ahaantaasna laba shar midka fudud in la doorto ay laga maarmaan tahay. marba hadduuna khayrba meesha olin, wax laga maarmaana in laba shar midka fudud la doorto. sidaa darteed waxaan shaki ku jirin dowladda Soomaaliya hadda ka jirto hadda marka waxaad moodaa inay rabaan inay ciidamadii calooshooda u shaqaystayaasha ahaa ee Afrikaanka ahaa ee ayaga u kiraysnaa inay rabaan kuwa ay ku bedelaan oo Soomaali ah inay sameeyaan, markaasna ay dagaalkii u wakiishaan ka socday Soomaaliya. taa maxaad fahmaysaa dagaalka Soomaaliya waa la soo afjari karaa, si fudud baa lagu soo afjari karaa. wax dagaalamaya waa Soomaali, laba wiil oo walaalaha midna ciidamada federaalka ku jiraan midna maxaan ku rahdaa al-shabaab ku jiraan. wax la isfahmi karo weeye. dadku waa dadkii Soomaaliyeed, dhulku waa dhulkii Soomaaliyeed. dhulka laguma kala guurahayo, la isma maquunin karo. haddii la ismaquunin karo 30 sano la ismaquunin lahaa. gumaysi inta la soo adeegsadana Soomaali laguma maquunin karo. dadka Soomaaliyeed dad dagaal ka yaqaano waaye. 10 nin oo dagaalamaysa baan wax badan laga qaban karin. marka in Soomaalidu intay isfahamto ay ka tagto burcadnimada iyo isbaarada iyo mooryaannimada, waxa laga diro ee noqoto mooryaannimada la diro, burcadnimada lala diro. maxaan ku rahdaa laakiin la isku dayo in wadanka Soomaaliya nabad lagu soo dabaalo. laisma maquunin karo, 100 jeerna waa sheegnay. cid ma maquunin karto. maxaan ku rahdaa meelna waa la qabsan karaa, laakiin suuragal ma ahan magaalo inaad inta qabsato magaalo kala qabsato dadkii dagaalamayeen labada magaalo dhexdooda joogaan dee isma gudbi kartid. kii wadada soo maraana sababta waxay u baahan tahay in hal baabuur uu wadada maro
markii la yiraahdo waxaan la yiraahdo saadka oo kaleeto markii la isu gudbinayo diyaarad kaliya la iskuma gudbin karo waxaa loo baahan yahay in baabuurkii shidaalkii wada uu booyadii shidaalka mari karto biyihii mari karaan raashinkii baabuurkii wada mari karaan ciidamadaasna markay raashin doonanayaan hal mar ma guuri karaan waxaas waxaa ku baaba'ay afrikaankii oo ku halaagsamay hadda way ka takhaluseen way ka joogeen diyaarad iyo doon iyo raashin isugu geeyaan marka intee in la egbe marka diyaarad raashin isugu geen karaan waagi hore waad ogeydeen waxay ayagoo duulaan ah oo ciidda ka batay bay mari jireen dhowr baabuur baa lagala hali jiray laakiin ogow markii hawsha kugu sii badato 10 sano wiigiiba dhowr baabuur lagala haro maalintiiba asbuuciiba ama laba dhowrkii maalmood baa dhowr baabuur lagala haro dee adigu warshad kuma soo saaraysa wiilasha iyo baabuurta warshad Soomaaliya ku taalo oo wiil ku soo saaraysa ma jirto waxaad u baahan tahay dhibaatadaas xoog leh inaad ka baxdo maanta waxay taagan yihiin inay xeryahoodii ku urureen diyaarad raashin u geyso helicopter sii socoto soo socoto hadda taas suuragal maaha laguma jiri kara waxaas ciidamada federaalka laftooda haddii ay ayaguna meel qabsadaan waxay u baahan yihiin in baabuurkii saadka wadada maro in magaciisi maro suuragalna maaha nin mucaarad oo hubaysan oo wadada kuu dhex taagan ma awoodi kartid inaad wadada si tartiib ah ku marto ma awoodi kartid marka waxyaabahaasoo dhan ayadoo la xeerinayo ma qabo in Soomaalida ay sugto markuu Mareykan uu ku yiraahdo war waad noogteene hadda heshiiya taas xal ma aha dadnimana ma aha waxaan shalay toola dhageysanayay aan akhrinayay Turkiga hadal cajiib uu yiri wuxuu yiri dawladda Turkiga go'aanka ay qaadanayso kuma qaadato mana kaga joogto dawlado kale rabitaankooda waxa weeye waa ceeb waaye nin adig kula mid ah oo aan waxba ku dheerayn in go'aanka aad qaadanayso iyo midka aad ka hor imaanayso uu kuu sheego oo markaa aad sidaas ku noolaato dadnimana aad sidaa ku rajayso cizina aad sidaa ku rajayso sax ma ahan Soomaalidu waxa ku maamulaa fulayow libina ku dhaweyda waxa loo baahan yahay in dadnimada iyo Soomaalidu waxa ku maamulay jirtay calool adayg waa ciidan Ilaahay waa inaad ogaataa qofna guusha lama dhalan qofna ciziga lama dhalan cizigu asaga qofka raadsado asaga difaacdo laakiin laguma difaaci karo cadawgaada oo hoos gasho cizi iyo sharaf iyo dadnimo iyo horumar kuma imaan karo maxay yeelay cadawgaada hadda jeer wuxuu ka shaqeynayaa sidii uu ku baabi'in lahaa sidii uu maxaan ku raahdaa adan mar walba asaga ugu baahnaan lahayd sidii uu adan marna la'aantii adan u noolaan karin maxaa yeelay qofka markuu xanuunsado oo jirrado oo neefsan waayo waxa lagu rakibaa mashiin ama qalab mataqaan hawada siiyo waxa la yiraahdaa afka qaad lagu yiraahdo life support machine marka ninka ajnabiga ah ee cadawga ah oo mataqaana aan Soomaaliga iyo walaalka ahayn mashiinkaas uu kugu rakibanaya haddaad tiraadana wuxuu leeyahay waan ka joojinayaa maxaan ku raahdaa hadii kale sida aan rabo iigu shaqee adiguna markaas dadkaadi iyo dalkaadi uma adeegi kartid waxaad u adeegaysaa asaga baad u adeegaysaa faa'iidada aad ka heshana markay u badato waxa weeye inaad meesha sii joogto xogaa lacaga inaad aruursato inaad xogaa Soomaalida horboodo maalintu doonana uu ku bedelo adoo waliba dulli ah oo aan awoodi karin inaad sii noolaato oo aad mataqaana wadanka aad ku sii noolaato aan awoodi karin marka waxaan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay war ciziga ka raadsha Ilaahay ka raadsha oo adinka inaad isku tiirsanataan oo dadnimadiina iyo dad sharaftiina iyo dalkiina iyo maxaan ku raahdaa muqaddasaadkiina dad kale ha u daba fariisanina aan injeclayn oo cadow in ku ah cadowgaadana markaste waa cadowgaada laakiin haddaad marxalad kaga baxayso waa la ogol yahay inaad xeeladaysato laakiin ma 30 sano saad u xeeladaysanaysaa 30 sano ma xeeladaysi ku socdaan ma xeeladaysiba inaad wax walba ka takhalusto wax walba aad weydo wax walba la waayo ummadda Soomaalida faqri iyo gaajo ayagoo dhul qani ah joogo oo barwaaqa in mataqaana
raashin dhacay iyo lacag yar oo magaciisiga intaasoo sanaa la joogaa 20 sano ku socdaan hadda dowladaha federaalka waxay leeyihiin hal lacag lama samayn karo wadanku dhaqaalo lacag isaga uu leeyahay ma jirto kunkii baa weli sii socdo oo baaba'ay waana dhammaaday lacag ajnabi wax lagu kala gataa marka seed u sheegaysaa in wadan Soomaaliya la yiraahdo uu jiro hadaadan dhaqaalo lahayn hadaadan lacag lahayn hadaadan xuduudihii adan warka haynin hadaadan hal xabo oo maxaan ku raadeera oo diyaaradda hawada maraysa ay sheego hawa la soo wareegalda hawada waxa la soo wareego waxa way nidaam iyo maamul baa la soo wareego iyo computer baa la soo wareego ama waxa la soo wareego wax cirka maraya in la ogaado diyaaradda military hawada maraysa in la ogaado miya la soo wareego hal xabo raadeera dhulka ma joogo internet ba program ku jiro ayaa diyaaradda soo duulaysa iyo mid degayso ku sheegayo computer baad hor fadhidaa ku xiran maxaan ku raahdaa meel kale ku xiran oo macluumaadka ka helayo computer kale ka helayo waxaas ma hawada la soo wareegayo miya ma hawada la soo wareegayba hawada lama soo wareegin hawada la soo wareegay ma jirto dadka yaa been loo sheegin hawada sideedaba ciidamada laba weeye waa mid shibil ah iyo mid ciidan horta tii ciidan maba jirtaba tii hal xabo oo raadeer ah male waxba male wax hawada maraya war lagama hayo halgeeda waana 20 sano la maraya 20 sano hadii la marayo oo hal mataqana raadeer aan la samaynin oo xataa muqdisho raadeerada diyaaradaha dusha maraya aan war laga haynin oo ay dhici jirtay xataa diyaarado Mareykanku leeyahay inay dadka mashquulaha ku jiro ay ka sawiran jireen shimbiro loo ekeeyay oo macruuf ah waxaas nolol maan sharafna maan waa dulinimo waay marka waxaan leeyahay war ummadda Soomaaliyeed ha isku tashato sidaan si maahan in la fiiriyo mataqaana dad dabadhilifnimo ku dagaalamayo ana dabadhilif fiican u fiirso dowladda federaalka hadda kuwa ku kacsan kuwa masaalix Soomaalinimo oo u kacsan ma ahane waxay qancinayaan oo wax u sheegayaan dadkii la hadlayaan waxa weeye waa dadka mataqaana ajnabiga ah ayay waxay ku leeyihiin war anaa ka dabadhilif fiican dabadhilifnimadeeda kaaga fiican anaa ka cadaaladsan asagu Soomaalinimo u dhaqaaqaya xagiisa ninkan waa nin caadi ama ahan kuwan anaa in kaga fiican ma ahan inuu dhibaato shacabka Soomaaliyeed loo geysanayo uu iftiiminayo ma ahan hal xaba ma iftiiminayo weliga asagoo bad ka hadlaya ma arag weligii ma arkaysa asagoo xuduuda ka hadlaya ma arkaysid weligii diyaaradaha wax duqeynaya ka hadlaya ma arkaysid weligii dadkan ajnabiga wax dilaya adoo ka hadlaya soo ka hadlaya arki maysid weligii mushkilad Soomaali lagu sameeyo ka hadlaya arki maysid weligii dadka badda ku dhamaanay ka hadlaya ma arkaysid weligii maxaan ku raad dadka dibadaha ku xirxiran oo ku baaba'san ka hadlaya arki maysid weligii dadka bagaajada u dhimanaya ka hadlaya arki maysid hadda haye la hadlayaan marka waxay la hadlayaan nin cadow ah oo ajnabi ah oo mataqaana gumaysi ah ayay waxay leeyihiin wadankan dadka kaliya ee idin duleyn karo iyo dadka Soomaali waxa idin duleyn karo waa annaga wax noo dhiibta billahi alaykum halkaas ay maraysa intaas ku soo gabagabeynaya salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aykan ku leeyahay inay dadka mashquulaha ku jiro ay ka sawiran jireen shimbiro loo ekeeyay oo macruuf ah waxaas nolol maan sharafna maan waa dulinimo waay marka waxaan leeyahay war ummadda Soomaaliyeed ha isku tashato sidaan si maahan in la fiiriyo mataqaana dad dabadhilifnimo ku dagaalamayo ana dabadhilif fiican u fiirso dowladda federaalka hadda kuwa ku kacsan kuwa masaalix Soomaalinimo oo u kacsan ma ahane waxay qancinayaan oo wax u sheegayaan dadkii la hadlayaan waxa weeye waa dadka mataqaana ajnabiga ah ayay waxay ku leeyihiin war anaa ka dabadhilif fiican dabadhilifnimadeeda kaaga fiican anaa ka cadaaladsan asagu Soomaalinimo u dhaqaaqaya xagiisa ninkan waa nin caadi ama ahan kuwan anaa in kaga fiican ma ahan inuu dhibaato shacabka Soomaaliyeed loo geysanayo uu iftiiminayo ma ahan hal xaba ma iftiiminayo weliga asagoo bad ka hadlaya ma arag weligii ma arkaysa asagoo xuduuda ka hadlaya ma arkaysid weligii diyaaradaha wax duqeynaya ka hadlaya ma arkaysid weligii dadkan ajnabiga wax dilaya adoo ka hadlaya soo ka hadlaya arki maysid weligii mushkilad Soomaali lagu sameeyo ka hadlaya arki maysid weligii dadka badda ku dhamaanay ka hadlaya ma arkaysid weligii maxaan ku raad dadka dibadaha ku xirxiran oo ku baaba'san ka hadlaya arki maysid weligii dadka bagaajada u dhimanaya ka hadlaya arki maysid hadda haye la hadlayaan marka
waxay la hadlahayaan nin cadow ah oo ajnabi ah oo mataqaanaa gumaysi ah ayay waxay leeyihiin wadankan dadka keliya ee idiin dulayn karo iyo dadka soomaaliya waxa idiin dulayn karo waa annaga wax noo dhiibta bilaahi calaykum halkaasay maraysaa intaasaan kusoo gabagabaynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga wax noo dhiibta bilaahi calaykum halkaasay maraysaa intaasaan kusoo gabagabaynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu